عدانا هذا إيكاد هذا واحد نقول هايستان إيكادية واحد نقول هايستان هوية محاولة شقينا سانسي وناسين ما بنجلاديش ما الله شقين لهين مركب هوية صور رجع حمر وحاوية دنبابة معها مضى صوماليات وحاوية ضدكي كم على كلام وطاس وعلى كبلوجا مضى وطه هراء ولا ما صوتك لا شقين لهاي أنا كاتن مدحوينا نقولنا يا شقاو قبحنا لهاي سوينا هوية لا شقيان معها حتى لا شقين وين سابرين لا شقين يعني أنا ولا شقينا قلبي ودارات هدو شبايو موت كيقل ورموت كقلنا هذا موت كقل مدحوينها صومالية دقيست أمة الصومال رضي الله عنه الحسن الشيخ محمود نينكا وجهيسا فرحادو ka muuqatay Soomaali cugdado qadi ninka maamulada aan ku galgalanay ninka arrimaha ka guurtiyay ninka dhalinyarada u wajiga furan ninkaas waxa weeyaan faxalka ah ninkaas waxa weeyaan guurtiga ah ninkaas madaxweynihii koowaad ee taariikhda ku galay laba jeer inuu si sharci ah u yimaado fiiri laba jeer ninka ay raalida ka ahaayeen ma jeerteen baa la yaabay wanaagiisii macnaha iyo waxa uu galay iyo waxa uu guday la yaabeen 40 milyan oo lacag ay soo qaadeen macnaha waxay la yaabeen inuu waagi hore khalad u tagay ninka ma jeerteen oo waligood cid soo dhisinin ay keeneen waxaan anana ballan qaadayna ninka ma jeerteen garteen inuu xilka ku laba cishado samarka soo socdana xoog baan ugu laba celin anaga ugu laba celinayba maxaa yeelay ma jeerteen ugu laba celiya baan ugu laba celin kari waayna waan ugu laba celinayna anaguna markuu soo tufo ee uu ogaado in dad ay imaadeen dalku inuu dal noqdo bas ay ka go'an tahay aba mood kana gal mood ka gala waa madaxweyne mucjiso weey mood ka gala maxaa jira marka war anaga madaxweyne maxaan sugu imanaynaa anaga joog anaga hadda markii xamse la dooranayay miyaa la yiri madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa xamsi waa nin daarooda maya ee waxa la yiri madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed wuxuu noqday nin hawiya oo abgaal ah ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeedna wuxuu noqday nin daarood ah oo reer Kuubada ah haye isku meelba mabaniinba markay ma anaga isku shaqaba aba anaga wixii madaxweyne qabsanay maxaa naga garay wixii naga aadan ra'iisul wasaaraha ay iska wareysanayaan wixii uu qaribo annana waxaan qaribno waa madaxweynaha iyagii ra'iisul wasaaraha iska wareysanaya maxaa isugu dhaxnaaba maxaaba keenayaba edab darro haye sida haddaba hadday tahay halkan waxaanu ka cadaynaynaa iikaadi halkan waxaan ka cadaynaynaa ummadda diimeed ah ummadda islaamka ah ummadda Soomaaliyeed ah ummadda hawiye ah ummadda calanka buluuga ku suntan ee guryahooda lagu waardiyeen calan kale oo carcaariyada aan qaadanin wixii la sheegi jiray iyo wixii hore lagu yiri horta waan ka raali gelinaynaa wax kasta oo adoomay sidana dhacday ma talin karaan war waa talin kartaan anaga dhahayna hadii ba talin jiray waana talinaysaan hadda talinaysaan waana sii talin doontaan hadda aan la shaqeynaa waana la shaqeyn doonaa marka iyaga anagana ugu sareyn doonaa waana la shaqeynaysaan maxaa kale oo isugu imanaynaaba hadii wiilka uu tali waana soo talinayna hadii sareynta ma soo aabahay iyo sidaan magan ka soo gaaray rag waxaan ku maamulay aqaanama ku maamusi masa inaanu nahayo taliba meertan noo tahay haye nin darkeen mudmudee hoosna maray mudxiyay insha Allah muslimkuma cabiidsama walban madaxa ka goyn war mugi weel ma dhaafay allow mooska yaa jabin masalaha ninkaan ii dhigay midig ma saarayo ninkii aniga ga maarmi karo way muraadiyay saddex magac ali xajada laga marsi gabaygaas waxa awowgaya uu yiri oo wax weey nin ogaadeena waxa ka hor imanaya haddaad taad qofkii ma talin kartid nin kula siban haddaad taad ilama siban haddaad taad ana laandhe adiga ka muuqato sida iyo darteed hadda xasan sheekh maxamuud hadda lixdankii hadda xasan sheekh maxamuud waaba dhaafayba imisa waxa inta ku ritaayeeray caadi intuu ritaayeeray hadda madaxweyne kale ma baahna hadda idin sheegay ma dilaac saartiyo xasan sheekh maxamuud cimriga ka kaxaynaya okay markuu la ekaado xamsan xasan sheekh maxamuud nin odaya noqdo isaga madaxweynaha lagu wareejin isna uu ka ritaayeeray ummadda saasi ku hagaagaysaaba daaseed madaxweynaha dambe way dhamaatayba okay wax dambe oo loo baahan yahay ma jirtaba waaba intaaba bas sugay okay isanaye inaad meeshan fiiri waxaad u qabtaan oo dhibku ka jira ra'iisul wasaaraha waxaad moodaysaan
marka uu tago inaad barwaaqoobaysaan oo xoolaha ummadda idin siin karo tuuga u tagaysaan meesha waxba la cararaysaan mar dad ra'iisul wasaare tahayna madaxweynaha ugu sarreeya wadanka baduu shaakir ra'iisul wasaare maaha hadduu xarari waayo marka ra'iisul wasaare maaha oo boorsadiisa bacdiisa soo qaadan waayo soo maha maamadaasi waa hirgashay firi maba diidan madaxweynaha ra'iisul wasaare mid ka sarreeya mid ka sarreeya aban cadrus u dah sida cadrus bal wuxuu ku leeyahay wuu og yahay sharciga wadanka inaan madaxweyne wax ka sarreeyaa jirin kadib wuxuu ku leeyahay waa isku soo taagayaa kadibna waa soo cararayaa ama waxbaan xadayaa waa soo cararayaa no annaga waxaanu aqbalsannahay madaxweynaha wadanka ugu sarreeya maanta inuu yahay wiilka abgaal annagu kamaanaa dhigin adaa ka dhigay waxaad ka dhigtuu yahay muxuu yahay marka ulul amriga ummadda soomaaliyeed ugu sarreeya maanta wax madax meel ka sarreeya ama wiilkiisaa soconaysa wuxuu joojiyana dhaan joojinaynaa wada wuxuuna dhaan waan wadaynaa maxaa yeele anagu madaxweyne baanu nahay saa haddaadan u garnaqsan karin dee istifaax marka waa yahay haddaad tahay baba waxaas ma dhici kadho haddana ka sarreeya ma dhici kadha dhamaystayba ma jiro soomaali oo dhane haddee gar baydaan u tegayn waydaan garnaqsan aqoonin waydaan garnaqsanaynin feri ismana dib war meesha ama xoog ku joog dhagayso laba midun xoog inaad ku joogi karto iyadoo shuruucda dhagayso xoog inaad xoog ku joogi karto iyo inaad shuruucda u hoggaansatid waddanka labadaa midun bay noqonaysaa ama xoog ku joog oo foodo ku joog foodana kuma joogaysa shuruucdiina ma hoggaansamaysa marka inta aan kaaga jawaaba dhagayso inaad horta aniga waxa igu gaara maahan dhammaan ra'iisul wasaare hadduu hawiye ahaa iyo hadduu daarood ahaa ama hadduu isaaq ahaa ra'iisul wasaare ahaa ra'iisul wasaare dhamaystay oo shantiisii sano dhamaystay oo madaxweynaha inta la bilaabay la dhamaystay horta maba jiraba aniga waxa igu gaara ma waa khalad waxaas waa khalad jira wey waa iimaan la'aan wey markii hore ra'iisul wasaare la rabina bariis la rabi kalluumays baa loo tagay meesha looma tagin xilli waryoolka kuma dhamaysan dhinaca taqaan wax dhagayso laandheero xoog ku joogi karana mayna ahayn haddaan ku sheegaynaa sababtoo meesha anaa ka maqan xoogna kuma joogi kartaan sharcina kuma shaqaynaysaan marka adoo laangaaba haddaad wax la cararto ama wax kharribto dhirbaaxaa lagala dhaalayaa waxaan taa ogaanaynaa markaa ra'iisul wasaare absamaa meesha noo keentid oo ra'iisul wasaare matalaya oo sidii ra'iisul wasaareyaasha kale u agti garaynaya markaad noo keentid laakiin aadan ninkaa inaadeen sidii kuwii kale soo cararaya miya ballan baan ka qaadaynaa inuusan soo cararaynin welibana 5 sano hadda way yar tahay 5 kale ku celinayaa 5 kale lagu celinayaa adigu hadda madaxweynahan waxaanu u qorshaynay 10 sano si ummadan madaxweyne la beddelaya waalay ninka guurtida ah ee reer abgaal waa wiil Soomaaliyeed hawiye ah difaaci wadanka ah xaq u leh in la shaqeeyo waxaan la shaqaynaynaa ugu yaraan 10 sanadood marka la shaqeeyo daaroodka goobta inay meesha imaadeen xaqna u leeyihiin in iyagaaba odhanayaba yaaqay ma hawa ku daali wada ogaadaba marka hadda wada anaga ra'iisul wasaare noqonayna fiiri bal inaad gobonimada bal eeg laakiin ma dhici kadho way dhici kadha baxa qaado waxaas masaraba waaba caabe madaxweyne qof si socdo horta inaad ay markaad u weydid waxay Soomaali kala sameeyeen wax kale aad ku dhanisho markaad weydid waxay Soomaali kala sameeyeen anagu haddaanan hadda hadda waxaad nagu haysataan iikaadiya waxaad nagu haysataan hawiye maxaa ula shaqaynaysaan si wanaagsan ma Bangladesh baan la shaqayn lahayn marka hawiye soo ragga xamar waxa